ma haysan aabba taajir ah. Waxaan isku dayay 3 jeer jaamacadda, dhammaan waan ku guuldareystay. Waxaan codsi u gudbiyey Harvard 10 jeer, dhammaan waan ku guuldareystay. Xitaa ma aysan rabin inay arkaan. Markii ugu dambeysay waxaan aaday kollejka macallimiinta, taasoo la tixgelinayay 3 ka mid ah 4 galaas ee magaaladayda. Waxaan soo apply gareeyay shaqooyin 30 jeer, balse waa la ii diiday. Waxay ahayd mid aad u adag waqtigaas. Waan niyad jabay. Maxaa yeelay way igu adkeyd jaamacadda. Mushaarkayga wuxuu ahaa $10 bishii. Maxaa yeelay shaqo wanaagsan maanu helin. 1994 waxaan ka hadlay inaan sameynayo wax la yiraahdo internet. 23 qof oo kamid ah waxay igu dhaheen tani waa fikrad doqonnimo ah. Weligeen ma maqal wax la yiraahdo internet, waxna kama ogid kombiyuutarka. Kumaan fikir inaan aqli leeyahay. qofna kuma fikir inaan guulaysan doono. maxaa yeelay qof walba wuxuu ilaahay hagaag, inkaan si kale ayuu fikiraa, fikrad waali ah. ma ogtahay waxa uu ka fikirayaa waxaan weligood shaqayn doonin. waxaan isku dayay inaan bangiga ka soo deensado $3,000 ah. waxay igu qaadatay arrintaas 3 bilood, balse weli kamaanu helin. waxaan la hadlay in ka badan 30 ilaa 40 maalgashadayaal ah. qof walba wuxuu idhahayay iska ilowtaas. dad badan ayaa waxay dhaheen Alibaba waa naqshad xun, balse sidaan sheegay waan aaminsanahay. waxaan ku fikiray midaan inay noqon doonto mid weyn haddaan ilaalin shaqada. marna kuma fikirin inay sidaan u weynaadi doonto sida maanta oo kale. laakiin waxaan aaminsanaa inay wax igu sugayaan halkan. waxaan u shaqeeyay si adag si aan u horumariyo nafteyda. waxay ahayd khibrad adag. waxaan ka soo aruurinay $50,000, 18 asaasayaal ah. waan bilownay 3 sano ee ugu horeeyay, xitaa $1 oo dakhli ah kumaan helin ganacsigeena. mana ahan arrintaas mid fudud. ma aadan sameynin wax lacag ah, waxaad heshay sheegash aan caadi ahayn, welina wax maadan samayn. taasi waa internetka. laakiin waa maxay boontiga? ma milyaneer ayaa tahay adiga? hadda maya. ma jeceshahay inaad noqoto? si fiican, waan rajaynayaa. laakiin maxaan horay ugu socdaa? maxaa yeelay waxaan maalin walba helaa iimaylo badan ay soo diraan customerka, kaasoo ay igu mahad celinayaan. waxay dhahaan tani waa wax aad u weyn, kuma siin karno lacag, laakiin kani wuuna caawiyey. haddii aad joogtayso inaad na caawiso, maalin waad guulaysan doontaa. waana rumaysnaa midda. si tartiib ah waxaanu dhisnay ganacsigeena. in yar waxaanu dhisnay nidaamka deegaan ee kaabayaasha dhaqaale. hadda 16 sano kadib waxaynu nahay Alibaba Group. waxaanu leenahay Tmall Group, waxaanu leenahay Taobao Group, waxaanu leenahay Alipay. waxay dadka hadday dhahaan waxaa tahay qof aad u caqli badan, sidee aad ku samaysay kambani sidan oo kale ah? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page iyo Max Zuckerberg. farqiga u dhexeeya dadkan iyo dadka kale waxay ahayd had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa rajo ka qabo mustaqbalka. kamaysan xawan waxay had iyo jeer isku dayayeen sida ay u xalin lahaa problemska dadka kale haysta. markaad rajo wanaagsan leedahay, waxaad had iyo jeer haysataa fursado. dadku isla maanta ayay leeyihiin Jack, aaway fursadihii? ma hayo shaqo, ma haysto kan iyo ma haysto kaas. balse hantida ugu fiican ee aad haysato waa dhalinyarnimadaada. ha cawan u ogolow dadka kale inay cawdaan. fursaduhu had iyo jeer waxay yaalaan meesha ay dadka ka cawdaan. ka fikir sidaad u samayn lahayd waxyaalo ka duwan. goormee ayaad ka fikiraysaa? bilow si aad u samayso. waxaan arkaa dad badan, dhalinyaro badan, kuwaasoo hayo fikrada cajiib ah maqrib walbo, balse subaxdii waxay aadaan xafiiskooda si la mid ah. haddii aad rabto xaqiiqdii inaad noqoto qof hal abuure ah, waa inaad samaysaa wax walbo intay dadka samaynin ka hor. waa inaad kacdaa aroortii intaysan dadka kicin ka hor. waa inaad yeelataa geesinimo in ka badan dadka kale. markaan yaraa waxaan aadi jiray galbeedka warta Hanshu. waxaa halkaas ku yilay hotel ay dadka ajaanibta soo booqda waddanka ay imaan jireen. waxaan aadi jiray subax walba halkaa 5 subaxnimo si aan ugu practice gareeyo Englishkayga. ajaanibta martida way imaan jireen, waxaan practice gareyn jiray Englishkayga. ma garanayo sababta waqtigaas, laakiin waxaan helay wax walba ay ii sheegeen ajaanibta martida ah.
aad bay ugu duban tahay waxyaalahan. waalidiinteeda iyo macallimiinteeda waxay ii sheegeen. sidoo kale waxaan joornaalka akhriyay, waalidiinteeda waxay ii sheegeen, macallimiinteeda sidoo kale waxay ii sheegeen. sidoo kale waxaan akhriyay joornaalada. markaas ka dambeeyay waxaan ku fikri jiray maskaxdeeda. isticmaal maskaxdaada si aad u fikirto. qof walbo, shakhsi walbo berito way cusub tahay. samee dhaqdhaqaaq, samee ficil. haddii ay maalgashadayaasha ku aaminaan iyo haddii kale, haddii ay ku aaminaan saaxiibada iyo haddii kale, haddii ay waalidiintaada ku aaminaan iyo haddii kale, taasi muhiim ma ahan. adiga is-aamin, kooxdaadan aamin, eena shaqeey maalin walbo iyo habeen walbo. samee qaladaad kugu filan. waad dhacaysaa, waad istaagaysaa. haddii aad rabto inaad u shaqaysato nafsadaada, ka fikir dadka kale. maxaa yeelay haddii dadka kale ay guulaystaan, haddii ay dadka kale faraxsan yihiin, waad guulaysan doontaa, waadna farxi doontaa. ha ka welwelin lacag, waayo lacagta waxay raacdaa dadka, dadkana waa inay raacaan riyadooda. haddii aad haysato fikrad, hadda hore ugu soco. waxaan jeclahay muuqaalka inaan halkan kusoo gabagabeeyo. haddii aad tahay marka kugu horeysay aad soo booqatay janaalkayga, fadlan subscribe saar siday kuu soo gaaraan muuqaalo noocan oo kale. mahadsanid.